wafdigan uu hogaaminaya madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Maxamed Axmed Caalin ayaa maanta ka dhoofay garoonka diyaaradaha ee magaalada Gaalkacyo. wafdiga ayaa u kicitimay magaalada Djibouti ee Jamhuuriyadda Djibouti si ay u qayb galaan shir maalinta bariya ka furmi doona magaalada Djibouti oo looga hadlayo arrimaha Soomaaliya isla markaana ay soo qabanqaabisay kooxda xiriirka caalamiga ah ee Somali Contact Group. madaxweyne Maxamed Axmed Caalin oo saxaafadda kula hadlay garoonka diyaaradaha intuu ka dhoofin ayaa waxa uu sheegay in shirkaasi inta badan diiradda lagu saari doono arrimaha Soomaaliya gaar ahaan burcabadeeda iyo sidoo kale sidii xal ugu heli lahaa dhibaatada 20 sano jirsatay ee ka jirta waddanka Soomaaliya. aan shirkii Djibouti arrimaha Soomaaliya dowladda Contact Group kaas oo shirkii labaad hadda oo hore uga dhacay dalka Denmark. marka haddii ilaahay yiraahdo wax uu ummadda Soomaaliyeed u ah iyo wanaag inay ka soo bixi doonaan waana soo laabanaynaa haddii laba maalmood shir soconayo. dhinaca kale shirjiraayad oo maanta ku qabtay magaalada Gaalkacyo Janaraal Cabdi Xasan Cawaale Qaybdi taliye hore ee ciidamada booliiska Soomaaliyeed ayaa beeniyay in dadkii lagu dilay koonfurta magaalada Gaalkacyo loo soo qabtay qaraxii dhawaan la eegtay guriga uu ka deganaa magaalada Gaalkacyo. Cabdi Xasan Cawaale ayaa waxa uu sheegay in dadkaasi ay dileen dad dana gaar ah isla markaana ku tilmaamay falaad u foox. waxa la socotaan dad in loo qabtay arintaas inay ku lug lahaayeen tuhunkeed in loo qabtay arintaas iyadaahi haddana waxaad la socoteen in la laayay shalay oo ahayd bishu ameen hore oo saddex ahayd aroortii in dad lagu xasuuqay magaalada Gaalkacyo saddex xubnood oo labana meeshii ay ku dhimatay midna maaragtay dhaawac isbitaalka u yaal. waxaan rabaa maanta ujeedada shirkiga jaraad waxa weeye inaysan jirin wax xiriir oo ka dhaxeeya dadka la laayay oo dadka wax magaratada ay laayeen iyo qaraxii aniga la geystay inaysan wax xiriir la lahayn arrintaas. Calimaad Ibraahin, Telefishinka Royal, Gaalkacyo.